wanaagsan wararka ugu dambeeya dabashana qiimaha badan aan eego mid iyo labo horta Iran waxa ay duqeynteedii ayay si caadi u sii wadataa waxayna duqeysay oo ay deegaanka ama deegaanada Israa'iil ay duqeysay kamid ah xarumihii ugu dambeeyay dhinaca waqooyi ee Israa'iil oo ay kantaala la dhacday sidoo kalena Iran waxay u muuqataa in iyadoo maalintii 8aad iyo tii 9aad ba dagaalkooda uu ku sii saqayo inaysan haba yaraatee aysan joojinaynin weerarada ay geysanayso Iran waxa ay xaqiijinaysaa dhankeeda in ay marba marka ka dambaysa inay sii kordhiso weeraradeeda mooyaane aysan dhimi doonin militariga Israa'iil gorsii horeysay war uu soo saaray oo subaxda saqbarka ahayd xilliga markaasi qofka xilliga salaatuleylka tukado ee waqtiga Israa'iil ee saddexda galabnimo ku dhow saddexda habeenimo ku dhow ama 9 saac habeenimo waxay sheegeen inay digniinaha hordhaca ay ogaanayaan ay tahay in kantaalo sida roobka iyo rabaraba ay ku soo socdaan isla markaana ay kusoo jihaysan yihiin Haifa iyo deegaanada kale dhinaca waqooyi Israa'iil Israa'iil waxay u muuqataa in ay ilaa hadeerto aysan ka imaanin ama aysan ilaa hadeerto aysan ka imaanin wax loo arki karayo weerarada Iran dhinaca kalena ayatollah wadanka Iran ayatollah Ali Khamenei ayaa amaanay hanaanka dhinaca gantaalaha ee wadanka Iran in ay yihiin kuwa sharfan isla markaana ah in adduunka kuwa ugu sii wanaagsan ay yihiin wuxuuna sheegay weli in aan dahar dhabta laga qaadin gantaalo kale oo uu sheegay in ay u dhiman yihiin in loo isticmaalo Israa'iil isla markaana awoodda la adeegsan doono ay noqon doonto mid xeeladaysi ah xeeladaysi macnaha waxa laga wadaa mid si qaabaysan oo qaabayshin leh oo military leh oo tala leh loo isticmaali doono isla markaana kolba dooqa la aaminsan yahay in uu wax tari doono miiska la soo saari doono sidaad ogtihiinna barbilowgii maalintii weerarka lagu qaaday Israa'iil weerarka ku qaaday Iran waxaan idin sheegay ujeedka dhabta ah ee Israa'iil ay kala hayd wuxuu noqon karayay ayaan qiyaas ahaan idin sheegay oo runtii aan ku falanqeynay inaan ku yiri in Israa'iil ay doonaysay sidii Hamas Hezbollah oo kale inay u gasho iyo sidii Hamas ay u gashay Iran oo markay dad ka layso ama saraakiisha kalaysa in kala damaynta iyo amarka uu kala lumo wadankuna uu ka dhaco jahawreed laakiin sidoo marka waxay sheegay inaysan suuragal noqon karaynin sababtoo ah aqoonta iyo maartay aragtida baartaaneed ee dheer aan ku sameynay ama u lahayn dhowr iyo toban sano aan ka warramanay wararka caalamka waxay keentay inaan idiin sii sheego runtii inaysan taas macquul ahayn sababtoo ah Iran ayaan golaheeda militariga aqoon fiican u lahayn waa golo military waa idiin sheegay wadanka Iran dhammaan raggii 1979kii soo galay ee xukunkii shaaha wadanka ka eriyay raggii dhalinyarada ahay maalinta dagaalamayay iyo intii badneed raggii ardayda ahaa ee maalintaas iyagoon ardayda ahaa ee jaamacadaha ku jiray raggii safaadda Mareykanka qarsan jiray iyo ciidankii ka dagaalamay 8 sanadood kadib dagaalkii Ciraaq intaasi isay noqon karaan qiyaastaada oo kumanaan ileen intii dhimatay ama wadku u yimid ama dagaaladii ku dhintay mooyaane kumanaan way dagaalkii Ciraaq intii ku dhimatay mooyaane intii kale oo dhan wada janama la garay waa wada jana waa kadibna waxaa lagu daray golayaal kala duwan oo military oo ciida ka badan General Qasim Suleimani General Haji Sahdi General Hussein Salami General Hussein Baqari General Ismail Qani General Farhadi General Mahdi Rais waxaas oo Iran wadanka adduunka ugu janaada badan markaad fiiriso markaad doonayso inaad samayso baaritaan waxaan fiiriyay ageska da'dooda iyo backgroundkooda ama taariikhdooda iyo da'dooda ayaan fiiriyay isku wada mid bay noqdeen waa rag isku wada dhow isku kacaan aha rag isku kacaanka marka dee rag isku kacaan sabay hal mar janama u wada heli karaan waxa weeye maadaama ay kacaankii markii dhashay ay ka wada mid ahaayeen ayay wada kacaan saasay isku wada noqdeen wada janama u wada noqdeen because markaad fiiriso rag isku wada daa oo 60 iyo 62 iyo 63 u dhaxeeya ka ugu weyn uu 70 jir yahay ka ugu weyn waliba ka ugu weyn waxa kalena waa ka ugu yarna uu yahay 58 jir oo wada janana marka waxa darajada saas la isku sii maxaa marka lagu ku kala dheeraayeen darajo wuxuu kala dheeraayeen si quraanka u kala badiyaan diinta ama wadaadadan si uu soo xirowga si uu kala noqdeen xirowga si kala u dhig si xirowga u kala noqdeen waana waxyaalaha u baahan in aad aqoon ahaan iyo knowledge ahaan aad u qaadato kaliya maana wararka halkan aan kaga faa'iideynayo xogaa kaliya dhac laakiin waxaan doonayaa arrintan inaan fahmo arrinta saad u fahanto marka waa inaad diyaarsan tahay baa fiican kolka arrintaas waxaan rabaa inaad u diyaar garowdeen Soomaaliland nimanka marka saasay jiraan ma farbadan horta ku heleen waxaan oo jana nin baa maalinta wuxuu soo qoray inuu nimanku jiraan badana intan oo jana xaga laga keenay intan oo jana laguma bixin aqoon markii hore laguma bixin waxa lagu bixiyay halgankii berigii guuleystay baa lagu bixiyay waa iyadoo oo ciidankii militariga ahaa ee Soomaaliya berigii qabsaday dhammaan saraakiishii 25 wadana laga dhigo laakiin koona kumanaan bay ahaayeen maxaa soo haray ardaydii waxaa soo hadhay wax allaale wixii ahaa saynis dhiganayay wada saynisyahan baa laga dhigay ee maalintii safaaradda Mareykanka 400 oo maalmood bay haysteen safaaradda Mareykanka iyo raggii kacdoonka ka sameeyay gudaha iyo dibadda isku mar baa kacdoon ka kaca
sidaa daraaddeed ama dalka banaankiisa gudihiisa shaaha markaas oo faracidi leh uu cararay masar u carar marka saas ayaa dhacday taas ayaa marka keenaysa kolka marka israa'iil waxay doonaysay arrintay doonaysa aan idiin sheegay ee anugu aan jeebkayga idinka sheegay ama faqraanqaynteeda idinka sheegay iiraan hadday iyadoo caddaysa si aad u cad ayay iiraan marka horeysay u sheegtay waxaana ka hadlay arrintaasi xubnaha sarsare ee wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaasi jenaraal muxsin ra'iisi ayaa waxa uu sheegay ra'iisi waxa uu la hadlayay wakaalada wararka ee dalka iiraan wuxuuna u sheegay markii dambe wakaalada wararka ee waddankaasi iiraan in ay sax tahay in israa'iil qorshihii ay lahayd ee fashilantay israa'iil marka ay dadka dilaysay ayuu yidhi ee saraakiisha ay leenaysay hal qorshay ka lahayd isla markaana markay annaga nagu jahawareerinaysa ay lahayd meel kale aan weerarayna qorshay ka lahayd qorshaha ay ka lahayd ayuu yidhi saraakiisha muxsin ra'iisi waxa uu yidhi waxay ahayd in saraakiisha sarsare haddaad disheen ee la yaqaanay dadku intaa yaqaanay raggii hadli jiray aftahamada ahaa waxaa dhici doona waddanka hanta hadhula ka dhici doonta wuu isku dhex daadan doonaa kadibna jahawareer baa dhici doona dabadeedna jahawareerkaas iyo buuqaas iyo low and orderka lumi doona kolkaas wuxuu sheegay marka fahamka aadka u xoogan wuxuu ahaa ayuu yidhi inay israa'iil ay ka dhigi karaan inay iiraan ka dhigi karaan buu yidhi waddan sida suuriya oo kale oo marka dhown jaran laga dilo isla markaana madaxweynaha la handadoo la kala carray laakiin wuxuu yidhi maba yaqaanaan ayuu yidhi waddankan waxaana ahayd ayuu yidhi arrin faashil ah oo aad u liidatay ayuu ahaa in dhowr qof oo la dilo inay waddankan wax ka bedelaynin wuxuuna ku tilmaamay inay arrimahaasi ay ahaayeen ujeedooyinka laga lahaa sidoo kale haddaba afyeenka ciidanka militariga israa'iil ninka loo yaqaana faji adariic ayaa waxa uu sheegay in dhowr tuulo oo ku yaala dhulka ayuu yidhi dhinaca waqooyi galbeed ee dalka iiraan oo kale ah deegaanada kolesh taleeshaan oo ah aagga loo yaqaano industrial area waa aagga warshaduhu ku badan yihiin inaan dalbad doonno dadku inay ka cararaan ayuu aaggaas ka baxaan oo warshadaha ayaan duqeyn doonaa warshadahan uu leeyahy waa duqeyn doonaa warshadihii wax soo saarka ee dalka badankoodii wax badan oo hub soo saaran halka kuma yaalaan aagan warshadaha ku yaala koleysha taleeshaan inkasta ku yaalaan warshado la aaminsan inay gantaalaha soo saaraan laakiin inta badan waa warshadaha manufacturinga caadiga ah ee cuntooyinka alaabaha dadku u baahan yahay materiaalka caadiga waxyaalaha soo saara iiraan hadda waxay ka digtay haddii la bilaabo in warshadaha la ugaarsado in ay dad badan ay ku dhici doonto iiraan warshad la-aan isla markaana iyaguna ay kaga jawaabi doonaan waxaa loo yaqaano midi ku tag tit for tat siyaasadda loo yaqaano isla markaana qaniya kaa fujisa istiraatiijiyadda ay isticmaali doonaan annaguna haddaan iiraaniyiinta nahay waxay yidhahdeen waxaanu ku khasbanaa doonaa inaanu qaadno haddiina la qaniino waa qaniinana sidaa daraaddeedna waxa ay sheegeen inay cid ishortaagi doonto gantaalaha iiraan uusan jiri doonin ayadoo israa'iil ogaa sida ay u salbabakday ama buuqa ay uga dhalisay markii cisbitaalka laga weeraray kaasoo ay iiraan ku tilmaantay in cisbitaalka kasoka loo yaqaan aysan iyadu cisbitaalka ujeedin ay si toosa u tumaatiday xarun military oo meesha ku dhoweed iyo xarun qayb ah oo ay waar ahaan u ahayd askartii qase kusoo dagaalamay kuwaasoo bartilmaameedka u ahaa ayna ku tilmaantay in mudankoodii la mariyey wasaaraha UK steamer iyo boqorka dalka Bahrain ayaa labaduba waxay iyaguna ku yeedheen aflabadii waxayna dalbadeen in xabad joojin la sameeyo Keir Starmer ayaa waxa uu sheegay in bariga dhexe ay xaalad aad u daran ka taagan tahay iyadoo la sheegay ingiriiska markii hore in uu gabgab lahaa ayna ahaayeen dadkii doonayay inay qaadaan weerar iyo Israa'iil ay u heliyaan ayaa hadda la sheegay dib u fadhiisteen Amir Salman bin Hamad Al Khalifa ayaa sheegay isagoo magaalada London jooga in dowladda Bahrain ay ka dalbatay boqortooyada ingiriiska in laga caawiyo sidii loo joojin lahaa arrimaha dagaalka iyo arrimaha ay la mid ka tahay tan ayaa imaanaysa iyadoo madaxweynaha dalka Mareykanka uu qasay siyaasadda Israa'iil iyo Iiraan labadaba laakiin uu aad u sii qasay Israa'iil oo maalin walba uu u qabanayo mawcid hor leh iyo ballan ka duwantii hore tribalka wararka waa cala dhinac dalshan qala ee baydamkiis jimcaha maanta wararku way badan yihiin sidaa daraaddeedna lala joogo Allah